dhawaan ayaa waxaa bannaanka u soo baxay qoraal uu ku saxiixnaa qareen lagu magacaabo Jeremy Shulman oo sheegay inuu yahay qareenka Generaal Saadiq Cumar Maxamed oo loo yaqaan Saadiq John oo hadda ah taliyaha booliska gobolka Banaadir horeyna u soo noqday taliyihii ciidamada nabad sugidda gobolka Banaadir waxaana warbixin ay qortay hay'adda Monitoring Group ay ku eedeysay inuu ku lug lahaa weerarkii lagu qaaday guriga siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo eeda kale inkastoo qoraalkaasi Monitoring Group qayb ahaan uu ahaa mid qarsoodi ah oo golaha amniga uun la siiyay haddana waxaa faahfaahintiisa lagu xusay warqadda uu qoray qareenka Generaal Saadiq John warbixintii sanadkii hore bishii November soo baxday waxay ku eedeysay Generaal Saadiq eeda dhowra oo ay ka mid ahayd dilal iyo howlgallo dilal qarsoodi ah oo ka dhacay Soomaaliya eedahaasi waxaa ka mid ahaa weerarkii lagu qaaday guriga gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ay ku dhinteen 5 ruux waxaana qareen Jeremy Shulman weydiiyay bal inuu noo sharxo waxyaabaha uu warqadaasi u diray Monitoring Group-ka ay ku saabsanayd. That letter was supposed to be confidential and it was responding to a confidential annex to the UN Monitoring Group's report from last November. So this letter should not be in the public domain because it relates to a very confidential matter relating to unsubstantiated and inaccurate accusations against General Saadiq. But the letter, we believe, was leaked by someone at the United Nations, possibly someone related to Mr. Bahadur or the panel of experts. We don't know. marka hore aan cadeeyo warqadaasi waxay ahayd inay ahaato mid sir ah waxayna jawaab u ahayd lifaaq isna sir ah oo loogu jawaabayay warbixinta guddiga dabagalka qaramada midoobay oo soo baxday Novembertii hore marka warqadani ma ahayn inay bannaanka taalo waxay la xiriirtaa arrin sir ah taasoo iyaduna la xiriirta eedan sal lahayn oo aan sax ahayn oo liddi ku ah Generaal Saadiq hase yeeshee waxaan aaminsanahay in warqadda uu dusiyay qof qaramada midoobay ka tirsan laga yaabay qof xiriir la leh Mr. Bahadur amaba kooxda khubarada ma garanayo qofkaas laakiin maadaama hadda ay warqaddu bannaanka taalo iyada ayaa isku hadlaysa haddii aan soo koobo warqadda waxaa loogu talagalay in lagu diido waxa kooxda dabagalku ay ku sheegeen warbixintoodii 28 November si buuxda oo dhammaystiran aan ku cadaynay in sheegashooyinkaasi ay been yihiin sal iyo cadaymana aanay lahayn taxadarna aan laga samayn isla markaasna dhaawacaysa sumcadda iyo magaca wanaagsan ee qof hufan oo sarkaal muhiim ka ah dawladda Soomaaliya faahfaahin badan ayaa ku qoran warqadda laakiin muuqaalka guud waa waxaan hadda iri si aan uga hufo magaca Generaal Saadiq eedaha dhaawaca geysanaya kooxda dabagalku ayna cadayn u haynin shaqana ayna ku lahayn marka horeba sidoo kale waxaan la xiriiray Jay Bahadur oo ahaa xiriiriyaha guddiga qubarada arrimaha Soomaaliya ee Monitoring Group wuxuuna ii sheegay in maadaama warbixintaasi ay ahayd mid qarsoodi ah oo uu golaha uun la wadaagay in uusan sharcigu u saamaxaynin inuu ka jawaabo wax su'aal ah oo warbixintaasi ku saabsan haddaba mid ka mid ah eedaha loo soo jeediyay Saadiq John waxaa ka mid ahaa inuu hogaaminayay weerarkii guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ay ciidamada dawladdu qaadeen kaasoo lagu dilay 5 ka mid ah ilaaladiisa Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaan weydiiyay sida weerarkaasi u dhacay bal haddii uu dib wax yar inoo xasuusiyo ciidanka 17 December 2017 soo weeraray guriga hogaaminayay Saadiq Cumar Cabdiraxmaan la yaqaano oo markaas ahaa taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir iyo ciidanka hogaaminayay marka weerarkaasi la socotay 25 daqiiqo qaatay waxaa lagu dilay 5 wiil oo ilaaladooda ka mid ahayd oo habeenkiina kabahooda lagu aasay ilaa haddeertan aanan aqoonin meesha ay ku aasan yihiin marka qareenka waan arkay warqadiisa oo u diray guddiga u qaabilsan qaramada midooda dabagalka qaybteynta hubka Soomaaliya si dadka aqalaasaha iyo xasiloon darada Soomaaliya ka wada u qaabilsan aad iyo aad u yahay warqad runtii aan ku dhisnayn wax oo adilla ah iyo wax cadayna aan ku dhisnayn qof oo lasoo warsaday oo dawladda ka tirsan oo la rabo in lagu dari yeelo bannaankana laga geeyo weerarkii guriga ama xarunta xisbigeena ka dhacay Saadiq Asaad hoggaanka howlgalka habeenkaas isagaa qaabilsanaa cidda ka sarreysay amarka soo siisay iyo cidda ka dambeysay waan la ogyahay laakiin aniga waxaan kugu markhaati furayaa inuu isaga yahay qofka hogaaminaya weer qareenka Generaal Saadiq John Shulman waxa uu sheegay inuu la hadlay dad ku dhow Generaal Saadiq oo dhammaantoodna u xaqiijiyay inuusan weerarkaasi lug ku lahayn
qareen shulman oo ka jawaabaya eedaha cabdiraxmaan cabdishakuur ee ku aadan in jenaraal saadiq uu hogaaminayo weerarkii lagu soo qaaday gurigiisa ayaa waxa uu yiri I don't know where he's getting that from. I certainly have sympathy for the situation and the predicament that impacted him, but it doesn't mean that he's accurate in accusing General Sadak of this. I'm sure it was a very difficult time for him and a frenetic episode. ma garanayo meesha uu ka helay beernugeel ayaanu hayaa dhibaatada uu ku jiro ee raadka ku yeelatay laakiin taas micnaheedu ma aha inuu ku saxsan yahay inuu tan ku eedeeyo General Sadak waan hubaa inuu xil adag marayay waxaana laga yaabaa in xasuustiisu aanay saxsanayn waxaan ku sheegi karaa si aan khalad lahayn in General Sadak aan wax kaalina ku lahayn dhinac kasta oo hawlgalkaas amni ah hawlgalkaas waxa amarkiisa bixinayay saraakiil jooga xafiiska xarunta dhexe ee NISA ee ma aha xafiiska gobolka Banaadir waana laba xafiis oo kala duwan General Sadak kama shaqaynayeen xafiiska xarunta dhexe ee NISA marka xitaa qayb kama ahayn xafiiska hawlgalka sameeyay gudoomiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur ayaase ku adkaystay in howlgalkaasi uu hogaaminayay jenaraal saadiq isla markaana uu ahaa ninka gurigiisa gudaha u soo galay ee albaabka laga furay ayna jiraan dad kale oo marqaati ah oo arkay jenaraal saadiq in howlgalkaasi uu hogaaminayay magacii soo garaacay waajiyuu weydiiyey ninka aniga waajiyaha gaarka ah ama xarajka ama igu dhow aniga qofka protection GID protectionka ah iyada ka furay wuxuu yiri cabdiraxmaan cabdishakuur aan rabaa waliba ereyga wuxuu isticmaalay madaxweynaha u socdaa ereygaas uu isticmaalay waa laga furay iyada wiilkii laab ayuu ku dhuftay gajacad ayuu u dhacay waana afgembiga u dhacay rabaya yarkiina wuu suuxay ilaa weerar ka dhamaadan ugu suuxsanaada kabacdina wiilashii ayay dileen siyaarada hada dibnad ciyaarayay saadiq waan maqlay codkiisa waan arkay darkuu qabaan ogahay nooca u yaalay meesha taagnaayaan ogahay keligeyna maanta 2 qofood oo kale guriga ku jirtay ayaa joogtay iyo dad kale fara badan wax ma hadda qarsan isaga hogaaminaya ciidanka isaga mas'uul ka ahaa isaga operationka madax ka ahaa guriga waxaa gudaha usoo galay 5 qofood oo markii weerarka uu dhamaado 20 daqiiqo oo socday sida ku xusan qoraalka uu diray qareen shulman dadka marqaatiga ah ee uu qareenku xuso waxaa ka mid ah Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalolshe taliyii hore ee nabad sugidda Soomaaliya oo uu saadiq hoos iman jiray balse xilliga weerarku uu dhacayay aanan xafiiska joogin xilkana aanan haynin waxaana aan weydiiyey waxa uu ku saabsanaa marqaati furkiisa naftii horeysay waan isragnay sarkaalkaas isaga ahoo abukaata u ah ama qareenka u ah saadiq su-aalaha uu weydiiyena way koobnaayeen 4 ilaa 3 ayayna ahaayeen waxayna ahaayeen kow xilligaan saadiq isbaranay muddadaan isla shaqeynaynay habdhaqankiisa shaksiga ah wixii aan ka garan karo wixii aan ka ogay aan u sheegay marka waxaan maqaatigan ka kacay waxay ahayd wixii aniga iga quseeyay intii aan wada shaqeynaynay aniga iyo saadiq wixii aniga iga dambeeyana wixii hadda uu geystay ama oo dhibaato ama aniga operationska qaarkiis wax aan ka sheegi karin runtii ma jirin intii aan ogayna waa ka sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in dacwadooda laga qaban waayo oo ay xir ilaalintu diiday inkastoo aysan VOAdu xaqiijin wuxuu xusay inuu la tashiyo la yeelan doono qareeno kale oo dacwad dalka dibadiisa ah uu furi doono dhawaan isagoo ku eedeeyay dawladda in ay doonayso in lacagtii dadka ay ku difaacdo shakhsi dambi galay dawladda waxaa laga rabaa haddaysan saadiq howlgalka hogaaminayna annaga indhahana ku aragnay waa ninkii hoogeyna iyo xarunteena soo weeraray dawladda waxaa laga rabaa haddaysa saadiqayn qofka weerarka geysta inay sheegto cidda geystay weerarka kale ayaan la wadnaa qareeno howlahaas ku aadan oo cilmi muddo ah hawshaas ay noo socotay mar alaale markii talooyinkaas ay noo dhamaadaan dabcan markii aad qareen qabsanayso waxyaalo badan ayaa looga baahan yahay oo u baahan in dacwadaada lagu dhaqaajiyo markay soo dhamaato ayadana hadda ilaa yidhaahdo waan la wadaagi doonaa public iyo dadka Soomaaliyeed laakiin taladeeda iyo qareeno ayaan la wadnaa hawsha taliyii hore ee nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Sambalolshe ayaa ka waramaya aqoontiisa sida loo qorsheeyo howlgallada la midka ah kii lagu weeraray guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo cidda ay ka go'do talada kama dambaysta ah
horta aniga weligay goobjoog kama ahayn weerar caynkaas oo kale dhacaya dabeeciyana howlgallada sidaas oo kale tahona howlgal oo askartu ay go-aamin karto ma ahan waa howlgal si siyaasi loo go-aamin karo haddii askarigu qalad galana madaxda ayaa sixi karta oo sheegi karta in amar aan laga qabin la-aantood la fuliyey laakiin waxay la tahay weerarkaas oo kaleeto go-aanka lagu qaadanayo go-aan siyaasiya oo kasoo go-aya meesha ugu sarreysa inuu yahay qareen shulman ayaan weydiiyey haddii warqadii uu u diray xiriiryaha guddiga khubarada Soomaaliya ee qaramada midoobay uu ka helay wax jawaab ah. Not really. We got a letter from a legal officer at the UN essentially saying they will not reply. That Mr. Bahadur maya runtii waxaase warqad ka helnay xafiiska dhinaca sharciga oo noo sheegay inaysan ka jawaabin arrinteenna waxaa kaloo noo sheegeen in Mr. Bahadur aysan xilligan ku habboonayn inuu ka jawaabo islamarkaasna uusan nala kulmi karin Mr. Bahadur waxa uu hogaamiyaa golaha khubarada Soomaaliya inkastoo dawladda Soomaaliya aanay aqoonsanayn wuxuuna diiday inuu wajaho oo ka jawaabo arrintan guud ahaan. General Saadiq John ayaa sanadkan ka mid ahaa wafdigii madaxweynaha Soomaaliya ee yimid magaalada New York ee dalkan Mareykanka ee ka qayb galaya kulankii guud ee qaramada midoobay. dhegaystayaal waxaa naga xasuusina inaanu isku daynay in aynu la xiriirno General Saadiq si uu uga jawaabo eedahan waxaana dhinaciisa wakiil ka ahaa oo u hadlaaya qareenkiisa Jeremy Shulman. inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhiga VOA inta mar kale dib u kulmi doono nabadgelyo.